baadiyaha ee xoolaha iyo beerleyda waxaynu dareennaa oo aynu ognahay abaaruhu markay jiraan baadiya biyo la'aanba runtii muddooyinka ugu dambeysay ama sanadkii hadda ugu dambeeyey abaaruhu waynu ogeyn dadkeenna runtii waxa weeye arrinta ay dee saamaynta ay ku keeneen sidaa darteed waxaa ina baahi tiri kara uun ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa raasiqa madarka iyo roobka samada uu inooga keeno rabbi tabaaraka wa tacaala sidaan hadda rajaynayno oo filanno ilaahay uga baranay inkastuu ilaahay xilli walba dee keeno waxa weeye nimcadiisa bishii maarch way dhowdahay waa jiilaal gabagabadii sidaa darteed waynu faraxnaa xilligaa guga la galo oo nimcada ilaahay baa timaada balse haddana kulle bini aadam daciifa innaho dadkii abaarta shalay ku jiray marka aynu guga guda galno runtii waxaa jirta kama faa'iidaysano nimcooyinka ilaahay marka waxaan soo jeedin lahaa qodobka koowaad iyadoo xukuumadda jamhuuriyadda somaliland xil saaran yahay runtii ummaddana ay inay u adeegto runtii ay tahay nidaamka dawligu waxaan tala ahaan u soo jeedin lahaa wasaaradda biyaha iyo wakaaladaha biyaha ka jira gobollada sida caasimadda oo kale runtii iyadoo la iskaashanayo in dood cilmiyeed iyo conference laga yeesho policy national policy ku saabsan waddankeenna oo biyaha ah si aynu uga faa'iidaysano dadkeenna inta badan wacyigelinta biyaha roobku faa'iidooyin badan ayuu leeyahay biyaha roobku 6 biloodna jiilaal weeye 6 biloodna gu weeye wixii daraasadda marka la sameeyo ka soo baxa iyadoo survey iyo la sameynayo cilmi baaris guud iyadoo la iskaashanayo wasaaradda biyaha iyo wakaaladaha biyaha dalku iyo dadka water technology-ga bartay ee khibrada waxa weeye Somaliland dariska ah iyadoo lala kaashanayo in waddankeena number of population-ka dadkeenu way yar yihiin dalkeenu uu ballaaran yahay balse waxa weeye daraasad cilmiyeedka sartiga iyo natiijada ka soo baxaysa ay u noqoto baahiyaha meelaha ugu muhiimsan ee runtii dee biyaha looga baahan yahay dalkeena at least kaba soo qaad 6 gobol ee waaweyn ee dalka oo min laba ceelo waaweyn loo qodo waliba meelaha muhiimkeen looga baahan yahay sida oogada waqooyi markaynu oogan idhaahno ama gubal iyo oogo baahida ugu badan oogada oo xoolihii lagu dhaqayo iyo galbeedba oo beerleydiya 12 ceeloo min laba ceela oo waaweyn oo ahayn ceelasha yaryar haddii daraasad cilmiyeedka waa tusaale waa example aan intaan soo qaatay laakiin cilmi baarista iyo survey-ga la sameeyey ee tala ahaan aan soo jeedinayo haddii 12 ceel gobol walba 2 ceeloo waaweyn laga qodo waxaan filayaa ama aan rajaynayaa in runtii waxa weeye sida xilliyada abaaraha markaynu ku jirno in wax badan laga bixi lahaa qodobka labaad biyo xidheennadu runtii ma badna laakiin biyo xidheenno la sameeyey baa jira inta badan biyo xidheenku waa stagnant water baa la yidhahdaa biyuhu sidoodaba priority baa la kala siiyaa main importance-ka biyaha waa biyaha samada ka yimaada biyaha dhulka ka soo ee ilaahay burqada iyo biyaha taagan sida biyaha roobka oo kale sida ceelasha iyo barkadaha oo kale inta badan biyaha fadhiya ee taagan runtii waxay u baahan yihiin sida ceelkii halkan gabilay muxuu ahaa biyo xidheenkii laga sameeyey security in loo sameeyo xoolaha iyo dadkaba khatar bay u yihiin oo beri dhexdaasa waxaynu ognahay in dhalinyaro ayaa ku dhacay kolley dad kala maynaan maqal xoolaha laftooda marka security-ga biyahana in la ilaaliyo oo loo sameeyo silig iyo gate iyo ciidan ilaaliya sababtoo ah waxa weeye dee waa intaasoo mitir biyo xidheenka marka la sameynayo kolley masaafada iyo meesha laga sameynayo waxay u baahan tahay in wasaaradda policy-geeda ay ugu jirto mar walba in la ilaaliyo oo si risk iyo dhibaato ayna dadka ugu keenin biyo xidheennada la sameynayo biyo xidheennaduna waa qodobka labaad ee kulley soo jeedin lahaa waxaa bad moodaa runtii sidii berigii dhaweyto survey-gii la sameeyey ceelkii biyaha laga qoday riigii biyaha laga qodayay ceelkii ku yaallay meeshii berigii dhaweyto laga helay sidii biyaha loo raadinayey wax kale la helay runtii waxaa kale ilaahay khayr ha inooga dhigo kolley waxa weeye dee xukuumaddu way soo bandhigtay markii malaha sambalkii dee la qaaday in meesha macdani ay jirto laakiin waa hawl weyn oo ballaaran sidaa darteed macdanta iyo
marka la yiraahdo waxyaabaha natural resources ka ilaahay uu dalkeena ku manaystay oo aad u fara badan qodobka biyaha maanta aynu ka hadlaynaa wax walba ka mudan hadday shidaal tahay hadday dahab tahay way biyuhu waa noloshii jirkeena inta badan waxa la sheegaa bini aadam baynu nahay waxa la sheegaa 75% waa biyo example haddaan soo qaato caafimaad ahaan qof kasta oo bini aadam waxa la doonayaa inuu maalintii 2 litir isticmaalo biyo ama hal mar ha cabo dadka qaar baaba isticmaalo oo xanuunadii markay bateen dhakhaatiirtu markay u sheegaan 2 litir gelin hore way cabaan laakiin 12 hourska maalintii waa xawil 2 litir oo qofku cabo marka kullay biyaheena water supply system kuna waynu garan karnaa biyaha la cabayo kaliya ma aha waxbaynu ku maydhanaa manaafacaad oo dhan baa biyaha waxa weey macnaa loo isticmaalaa cuntaynu ku karsanaa marka dadku qiyaasta biyaha ay helayaan tusaale ahaan wakaaladda biyaha Hargeysa water supply systemka magaalada qaabka ay biyuhu dadka u gaarayaan runtii berigii dhaweyto dadaal badan baa la sameeyey meelo badan bay biyuhu gaareen waxaan tusaale ahaan soo qaadi karaa eriyada gurigayga ama u dhow biyuhu waxay soo dhacaan awal maalin dhaaf ay soo dhici jireen laakiin imika waxa weeye maalin iyo habeenba way soo dhacaan laba cisho iyagoo habeen iyo maalinba soo dhacaya haddana maalin la waayaya biyaha xawligoodu way badan yihiin oo xoog bay ku socdaan beebabkii dilaac bay sameeyeen marka taasina kulli waa technical baan malaynayaa waxaan tara ahaan soo jeedin lahaa wakaaladdu arrimaha ku gasho biyaha xawliga ee soconaya riski bay leeyihiin de meelo looga baahan yahay baa jira biyaha oo ina biyihii gaadhi marka habka beebka loo furay ee ku xidhan tahay control systemka intaana kulli khibrada loo diray injineerada oo biyaha xawliga ee qasabadihii jabinaya ee xilli walba soconaya in arrinkaana kulli technically waxa weey injineerada loo diray wakaaladda biyaha u soo jeedin lahaa iyaguba way ku warayaan oo ogyihiin kulli hawsha biyaha waxaad moodaa baahideeda magaalada Hargeysa oo kale caasimada haddaan soo qaato in badan baa waxa weey arrintan laga hadli jiray laakiin imika waxaad moodaa qof walba wuxuu leeyahay iyagoo u ducaynaya wakaaladii baan arkayaa marka insha Allah kulli waxa weey hawshaan horaa loo sii wado guud ahaan gobolada dalkeenana sida aan soo sheegay wasaaraddu kulli nidaam baa u yaala baahiyaha kulli marka ay u wareysanano ama hayno imaado wasiirku ama habal loo tagay xil baa inaga saaran oo dadkii baan shacabkii baan wakiil uga nahay systemka waxa weey biyaha ee wadanka ee heer qaran guud ahaan gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka dalka oo dhan biyaha nidaamka u yaala ee ay fuliyaan wasaaraddu inaan xog ka helno waa muhiim taana waxaan ku dhiirigelin lahaa kulli shirkadoonkeenna insha Allah wixii macluumaad ee wakaaladaha biyaha gobolada oo dhan iyo degmooyinka iyo wasaaradaba inaynu xog ka helno ama loo yeero kuntiga gabagabadii waxaad moodaa adduun kulli dhibaatooyin badan iyo dagaalla ka socda baahiyaha ugu weyn ee istiraatiijikali lagu dagaalamaa maanta biyuhu waa kow weligeedna saas ahaan jirta taa darteed biyuhu waa laba qaybood biyaha badda iyo biyaha bariga iyo biyaha ilaahay samada ka keeno lamida uu ku weynaa biyaha xareeda biyaha badda manaafacaadkooda waynu garan karnaa tusaale ahaan tabarta oo kale imika waxaynu ognahay dalka Itoobiya iyo Masar oo kulli xulku ka dhaxaysay faa'iidada ay wabiga maxaan ku raadin Niilka waynu ogeyn conflict weyn oo ka jiray Itoobiya imika waxay ugu talagashay geeska Afrika iyo Central Africa ba inay gaarsiiso tamarta dadka halka tiisanaya iyo inaga xaaladeena kulli ummad walba isku tashbay u baahan tahay inagoo leh bad baynu leenahay wabiyuun baynaan lahayn dooxooyin aad u weyn baynu leenahay marka waxaan oran lahaa arrimaha noocan oo kale waa masiirkii dalka aynu insha Allah iyadoo cilmi ahaan la eegayo aynu insha Allah mar walba ku dhiirigelino wasaarad walba iyo wakaalad walba hawsha ay qaabilsan tahay inaynu ku wargelino sidii aynu xog muhiim uga heli lahayn bulshadeena ay baahiyo badan uga bixi lahaayeen ilaahay waxaan baryaynaa dhibaatooyinka hadda ka jira gobolka Laascaanood iyo dhibta ka jirta ilaahay waxa weey dab markuu shiday biyo lagu baqtiin jiray biyaha aan ka hadlano ilaahay biyaha inaga baqtiyo tabaaraka wa taala